Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal saad nooga barateen waxaan idiin soo gudbin jirnay faa'iidooyinka qaybo ka mid ah cuntada. Maanta waxaynu soo gudbin doonaa faa'iidada ku jirta geedka barakaysan ee timirta. Geedka barakaysan ee timirtu waa geed ka baxa dhulka kulaylaha ah, gaar ahaan dhulka aanay ku samaysnayn badi dalagyada kale ee la quutaa. Dhulka ay timirtu ka baxdo waxaa kale oo la yidhaa lamadegaan, waana dhul saxare ah oo cimilo ahaanna aad u kulul. Timirtu waxay leedahay faa'iidooyin badan, waxaana ay caawisaa qaybo badan oo ka mid ah jidhka aadamaha. Haddaba, faa'iidooyinka iyo mucjisada ay koostay geedka timirtu maaha mid cod lagu soo koobi karo, laakiin waxa aynu xusi doonaa waxyaabaha ugu caansan ee laga dhaxlo isticmaalka timirta. Timirtu waxay dhintaa heerka kolestaroolka ee dhiigga, waxayna ka ilaalisaa xididdada dhiigga qaada qallafsanaanta sababtoo ah waxaa ku jirta timirta maadada loo yaqaan pectin. Maadooyinka sodium, potassium, iyo vitamin C ayaa ku jira. Waxay ka ilaalisaa jidhka sumaha, waayo waxaa ku jira maadooyinka. Waxay daaweysaa dhiig la'aanta sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka iron, copper, iyo vitamin. Waxay daaweysaa jiljileeca lafaha, waayo waxaa ku jira maadooyinka calcium, phosphorus, iyo vitamin A. Waxay daaweysaa appetite la'aanta, sababtana waa maadada potassium ee ku jirta. Waxay daaweysaa itaal darrada guud ahaan iyo wadnaha xanuunka, oo waxaa ku jira maadada magnesium iyo copper. Haddaba daawade, intaas waa qaybo ka mid ah faa'iidooyinkeeda. Geedka barakaysan ee timirta lama soo koobi karo faa'iidooyinkeeda laga helo, waana geed cunto ahaan ka sokow daawo ahaan loo adeegsado isagoo ka hortaga cudurro badan oo dadka asiiba. Diinteennu waxa ay dhiirigelisay isticmaalka midhaha timirta, isaga oo nabigeena suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laga soo wariyay inuu yidhi, ma gaajoodo cidda ay gurigooda taallo timiri. Waxaana xadiiskan caddaynaya oo makhraati ka yahay ahmiyadda ay leedahay timirtu. Timirtu waa cunnada ugu habboon ee lagu afuro soonka caafimaad ahaan, sababtoo ah waxay u roon tahay dheefshiidka, waana cunnada sida tartiibka ah caloosha u shiido. Waxaa intaas sii dheer inay dheecaanada iyo fiitamiinada jidhka ku jira ay isu dheeli tirto markuu qofku muddo gaajaysnaado, waxayna sare u qaadaa appetite-ka qofka iyadoo gaajada si dhaqso ah u yarayso. Waxaa intaas sii dheer in gaaska iyo aashitada caloosha ay ka ilaaliso inay dhaawac gaarsiiso dahaarka caloosha. Sidaas awgeed, waa inaan ku dadaalnaa inta soonka ama bisha Ramadaan ee barakaysan lagu guda jiro inaan ku afurno inta ugu horreysa ee inaanad afurka biloobin 3 xabbo oo tiro witri ah ku afurnaa timir, annagoo sunnada nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam raacayno.